oohinta ooyinayo Dr. Xabiib waa oohin dhibaatada Soomaalida haysata iyo sidoo kale cudurka dhimirka xanuunka uu leeyahay ee dadka Soomaaliyeed ee tirada badan ee la tacaalay cudurkan soddonkii sano ugu dambeysay oo la soo tacaalay 19 xarumood ayuu furay markuu siirina adduunka kala geey oo caafimaad dadkan Soomaaliyeed ha u helaan dhaqaatiir ha helaan iyo sidoo kale dhaqaale waxa lagu yiri dawladdaadu ma soo saarin shuruuc baarlamaanka lama geenin lama ansixin markii la ansixi ka bacdi aan ka caawinayna 19 xarumood ayaan taageergeliyay Prime Minister وفيروي برلمانكينا كما يسرحلين dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed hadda wuxuu yimid Mareykanka qurba joogta oo fahansan dhibaatada ay leedahay dhimirka iyo sidoo kale dadka Soomaali dhibaatada haysata ayaa haduu yimid waxa rajaynaynaa marka dadka Soomaaliyeed inay u kacaan sidoo kale dawladda fariinta ay gaarto baarlamaanka la geeyo waa ognahay Soomaaliya dhibaatooyin badan jiro amni wax kasta jiro laakiinse dadka Soomaaliyeed inay helaan waaye caafimaadka u baahan yihiin dhaqaatiirta u baahan yihiin iyo sidoo kale xarumaha u baahan yihiin inay dawladda la wareegto ay sidoo kale adduunka kale la kaashato adeer intuu ilaahay hadii tiisa noqoto xalab dhihi lahayd haliyay buu ahaa iyo qira Jabaanka ninkaasi markuu inaga noqonayo ugu yaraan xarumihii xidhmaya 9 ahaa in la dhiso intaasoo kuna qof xanuunsan sana aad gacanta ku qabateena lagula qabto soddonka sano aad shaqeynaysay wiilkaaga haddana aad ku sii wareejisay sayna u burburin shaqadiina aad baa ka mahad celinaa ku soo dhaweynaa dhalinyaro ahaan waa ku joognaa iyo ummadoo dhanba ilaahayna ha ku barakay Dr. Xabiib dadaalay 30 sano ayuu dadka Soomaaliyeed caawinay asaga ayaa hadda xanuunsan u baahan caafimaad inuu nasto u baahan marka waxa rajaynaynaa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay u kacaan sidoo kale loo sameeyo qaasnad dhaqaale adduunka aan la kaashano marka Soomaaliya ha noolaato waxa rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ilaahay inuu caafimaad siiyo waa ognahay dhimirka iyo sidoo kale dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ay soo mareen Dr. Xabiibna wuxuu ku ooyay waliba dadka Soomaaliyeed oo maalin kasta haayo inay shaabadaysan yihiin oo ku xiran yihiin xarumihiisa yacni rafaadka dhibaatada asaga kaliya ayaa dareemi kara maadaama oo dadkaas maalin kasta arko marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in uu helo waxyaabaha uu isleeyahay Soomaaliya oo qaban kartaa Soomaaliya noqoto inta u jeedin barafkii Mareykanka waaye markii gooreyso waaye aad waa aragtay barafkii waaye barafkii ما شاء الله Dr. Xabiib baraf lagu soo dhaweeyay